wuxuu arkay jinni. haddii aad habeenkii keligaaga joogto ha daawanin muuqaalkan. waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo la oran jiray cabdiraxmaan. wuxuu degnaa guri duug ah oo ku yaala meel dadka intooda badan ka guureen sanooyin ka hor. dadkii meesha degnaay mar walbo waxay ka sheekeyn jireen gurigaas. waxay dhihi jireen qofkii habeenkii gudahaas galo ama seexdo wuxuu arkayaa wax la yaab ah. laakiin cabdiraxmaan ma uusan aamin sheekooyinka noocaas ah. habeen saacadu markay ahayd 7 saac bar habeennimo, korontadii xaafadda oo dhan way dansaneed ama way ka tagtay. guriga dhanna wuxuu galay marxalad mugdi ah. cabdiraxmaan wuxuu ku fadhiyay sariirtiisa isagoo taleefankiisa isticmaalaya. kadib wuxuu maqlay cod. albaabka qolka ayuu si tartiib ah isku garaacayay ama albaabka ayaa dhawaaq sameynayay. wuxuu istaagay isagoo yaaban. wuxuu dhahay yaa halkaas joogo ayuu yiri, laakiin jawaab ma uusan helin. jawaab ma jirin. markii uu albaabka furay cidnaba ma joogin banaanka. jidka guriga hortiisa wuxuu ahay mid meeran ama mid cid mareynin. wuxuu isku dayay inuu is-ilowsiiyo wuxuu arkay, laakiin markuu sariirta dib ugu laabtay wuxuu maqlay cod kale. markan codku wuxuu kasoo baxayay jikada sida qof muraayado taabanaya ama qof dhawaaq sameynayo. cabdiraxmaan qalbigiisa si degdeg ah ayuu u garaacmay naxtin darteeda. wuxuu qaatay toosh yar, kadib si tartiib ah ayuu jikada ugu socday. mugdiga dhexdiisa wuxuu arkay wax dhawaaqayo ama shankar sameynayo. waxay ahayd ama wuxuu ahay hoos madow ah. si degdeg ah ayuu u dhuntay gees jikada ka mid ah ama qayb ka mid ah ayuu ku dhuntay. cabdiraxmaan neef ayaa kasoo fuqday. zaa'id ayuu u neeftuuray naxtin darteeda. wuxuu ku qeeliyey yaa joogo, yaa joogo. laakiin cod kale ayaa kasoo yeerayay dhawaqa qaybta kore ama guriga qaybta kore. dhawaaqna muxuu ahay tilaabooyin sida socod. qof ayaa kor ku soconayay. inkasta oo gurigaas keligiisa joogay cabdiraxmaan, tilaabooyinka way sii xoogeysanayeen daqiiqad walba daqiiqada ka dambeyso. markuu jaraanjarta kor u eegay wuxuu arkay wax madow oo taagan dabaqa qaybta sare. 2 indhood oo guduud ah ayaa mugdiga kasoo iftiimaya ama kasoo baxa. cabdiraxmaan wuxuu dib ugu dhacay cabsi darteeda. gadaal ayuu u dhacay. taleefankiisa gacanta ayuu ku qabtay si uu kaamira ugu duubo waxaan la yaabka leh. laakiin markii uu kaamirada shiday wixii taagnaa jaraanjarta waa la waayay. aamusnaan ayuu jibiga noqday naxtin shib. kadib cod hoose ayaa dhegtiisa kasoo yeeray hasoo korin jaraanjarta. cabdiraxmaan jirkiisa oo dhan wuu jirracooday, laakiin tilaabooyin culus ayaa si tartiib ah ugu soo degayay jaraanjarta. qaybta labaad waxay noqon doontaa mid la yaab ah oo cajiib ah. wuxuu arkay qaybta sare oo dabaqa aanu weligiis ilaawi doonin. follow garee janaalka hadduu kugu cusub yahay marka ay ugu risadee tahay ama CRN si aadan u seegin muuqaalka xiiso badan ama qaybta xigto.